xeerdudka jamhuuriyadda Jabuuti dhagayda koowaad dawladda iyo qarannimada qodobka koowaad dalka Jabuuti waa qaran xor ah mid ah oo aan qaybsami karin dawladda Jabuuti waa jamhuuriyad dimuqraadi ah waxay sugaysaa in loo siman yahay xeerka iyadoo qofna lagu takoorayn afkiisa asalkiisa sijiyadiisa muuqiisa ama diintiisa oo waxay tixgelinaysaa qofku waxa uu aaminsan yahay hal doorkeedu waa midnimo sinaan iyo nabad mabdaeedu waa xukuumad uu leeyahay dadweynuhu oo uu dhaliyay una dhalatay afafka qaranku waa af Soomaali af Afar iyo af Carabi afafka maamulka dawladuna waa af Carabi iyo af Faransiis qodobka labaad magaalo madaxda dawladdu waa Jabuuti calanka qaranku waxa uu ka kooban yahay cirow cagaar iyo cadaan ay ku dhex taalo xidig cas oo shan gees leh heesta iyo astaanta qaranka sharciga ayaa cadaynaya qodobka saddexaad dadweynaha Jabuuti baa ka kooban dhammaan dadka ay dawladdu u aqoonsan tahay inay ka tirsan yihiin dalka Jabuuti awoodda qarannimada dadweynaha Jabuuti ayaa iska leh oo ku tarkifala ha adeegsado wakiilo la doortay ama aftiba qof ama koox dadweynaha ka tirsan isma siin karto inay si gaar ah ugu tarkifasho awoodda qaranka sharci la'aan qofna lagama xayuubin karo ka tirsanaashaha ummadda Jabuuti